kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meelolada dadweynaha aad ka joogtaan kusoo dhawaada markale iyo barnaamijkiina maxaa cusub ee aad kala socon jirteen wararkii ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee Soomaalida iyo kuwa adduunka waxaan maanta idin soo gudbinayaa baan idin salaamaya asaga Mustafa aad baan ugu faraxsanahay caawinada wareysanaysan Hargeysa jooga ma sha Allah gurigaagina jooga ma sha Allah wadooda garateen baan filayaa codkaasi nimcayaasiin caraale magac miskiin lagama aha fanaanada weyn ee caanka ah nimco halkeed ku dhalatay goormaad dhalatay hadii aynu dadka dib u xasuusino intaan garanayn ee dhagta kala socota intii muuqaalka ka daawatay taariikhdaada way ka daawatay horta waxaan ku dhashay in Hargeysa waxaan ku koray in Djibouti 3 sano lagu geeyay waxa laga keenay in nearly 9 ano jira ilaa 8 bad deedna sheekhna iskuulka caamadi baan ka galay macna qaasim haddana waxaan ka galay iskuulkii hoose haddana waxaan ka galay iskuulkii dhexe haddana waxaan galay BB haddana iskuulkii ka baxay baan macallimad ka noqday ma sha Allah goortii ugu horeysay ee aad sugaato inaad fanaanad tahay ama goobtii ugu horeysay ka bilowdo iyo waliba heestii ugu horeysay ku bilowdo ma dhinaca heesaad ku bilowday ma riwaayadaha ku bilowday ma waxaan ku bilaabay markaan ay dadka ka baxnay 75 waxaan galay BB da 76 baan ku xariisnaa Saalax noo dhibay riwaayadii dana khaldanayn taariikhda wuxuu noo dhibay riwaayad loo jiray iftiinka aqoonta oo markii af Soomaaliga dadkii ololaha hirgeliyay maartay fidiyay tulooyinka geeyay adduun Soomaaliya oo dhan soo wada baray ayaa soo wada noqday deedna mar adaamay waxa la dadkii soo noqday waxa la siinay bilado maxamed siyaad bilada bixinayla naxariiste dawladii barigaas deedna hees waxa la riwaayad sameeyay riwaayadii waxa la waxa qaadanaysa waxbarashada kaiftiinka aqoonta qaatay Saalax baa qaatay iyo kooxda iftiin deedna maxay ahayd waxa ku jiray riwaayado hees aad u macaan waxa ka hirgashay heestii alfil kordhibay ألف لهوس ده يهس بدن هس فرتان كان بقاديي هدي البكورن يصدق حسد فريسو ميلا سان كلنا اترشكا ما شاء الله مريم عين بدنس كنت هيدي لا ونحرستو تاس أردينمدي bay ahayd teedna markii dambe macallimada noqdeen macallimadii waan ka tagay teedna waxaan noqday waa bari tan 86kii ayaan hadana fanaanad noqday goobtii ugu horeysay nimcayaasiin ay kuugu baxday miyaa markaas magaca ku caan baxay ugu caan baxay waxa weeyaan riwaayadii maxamed Saleebaan Shamaali durdumisay 86kii bishii horeysay baan baxnay riwaayada waan qaadnay ilaa iyo waxaan ka bilownay koonfur ilaa iyo boorame haddana waan soo celinay riwaayada waxay noqotay hid marka riwaayadaan akhrishakaa kaliya riwaayada magaceeda maxaa la oran jiray waxa isaseega jacaylka waxa ku jiray heesa laba heeso maxamed Saleebaan baan la qaadayay heesay baan la qaadayay heeshabaani baan la qaadayay heesa Shamaali waa caan waa taqaanaan waxa weeyaan burburin waxaad ka baqan dhankayga si maxamed Saleebaan aan la qaadayay waxa weeyaan maxamed Saleebaan baan waxaan daawaday sabab riwaayada ku timo ku sheegaya isaga oo masrax ka heesaya ayaana jaamacad ka nimo kala on daawanayno ayaa jaamacad metelina ayaan ka yeelay badkiisa kolba masaxaan ugu tagaa kolba masaxaan ugu tagaa kolba xabaan gariyo kolba deedna waan sheekaysanayno markaas ugu yiri adigu gareerahan dhaafsanay markaas wuxuu yiri ugu ma xaajada simano ogsoonayn buu yiri marse haddaan ehelnahay arli shisheeyana joogno aqbalkeen ayaan ahay aan baqaadka sheekada soo weyno ayaa kale waanu balanay waan isu nimi hees baan qaaday markaa waa markaa inaan ka helay funkiisii iyo yar doonayo waxay ahayd nuurkii indhaha iyo naftaha raaxadeedu sidaani kugu nugulahay niyadaydu ma ogtahay
كسوحي هذا أم بنبرك عاشقو إنو يكون نقادون نولش بلانتا إنان نعيو وأقتهي هسه سنت وقعنا وعمرك بقول سنس براني مركي دنبنا أنا جامعة بعيد ما تيم حالي كيف صار سبونيسي سهست سو سبونيسي وحي لقاضي بيكا وكلها صح هذا أنا مركز أنا جامعة بعد ما استوى صوب بحي وحني مهرجيسة بيدنا هيس مع السلامة بنسوق وقعدنا هيس أقول قفلة ما قادم ما أنت سنة يقدم بيسي أنقاذه هيس مكا أن دوفيو مكا وحنري كالجعيل كهالستيو هذه ماذا كدورو هذا لابتيجو هاي مكا سحيبوري ونكو حوينو إلى نهجرو كيستا وهابينكي حلايو تبي حولي سلقة بشديني كوهابوته كرو سودا هشيسكي يكو عنكنا كما سوحة ديكرو هايك علي النبط هايك على نبط دندارارات أدوى السيمة أساني سوقلتنا وايد أصلا كسو عام بحي magacaygu caan ku noqday deedna markii dambe kusoo noqday xamarna telefishinkaanu duubay inuu taaliba wareysanaysay aniga Shamaali heesii waxaan telefishinka qarankan siinay erka isku shareertay markaa anagoo shidan aniga Shamaali way barna laga yeedho waan wana ana tirshad khatar noqday oo cilmi caadi intay baxsan bariyaha mashquulka yar noqotay booskeedii aan galay oo kul cilmi tele riwaayadii cilmi caadi وهاكي بحسن كلاي ونكل عليه سايي وما عندي خوتشتي وسيران كوتشري وبوسكي ذي كلاي وجيي براوي ماركو بلاراري رايلا كسمايو إلى حد كل بوي حقني بايدا بقى أيانكي أنا ود بحسن كنا يا أنا جورينا وما جورسني حدنا جورتوني مايو شذا حتى بجور ما حد كديدي أنا وجور وحني كديدي رجايدي لا وجاكيدي يا أنكبرني موتنتي جايين بانشيرين لقاتون جريا جرد الرباو تاي نعذبو أنا ما أنت مش وبردي قبل بلصو هستي كله بالربيع فقر قعدت لصو هستي خطرت هياي وبلسكوك هستابا مركبة ولا إيه كاري إيو maxay heedeen madaxdii iyo waxa lagu yidhi waxaan rabnaa inaad waxa laga soo bixiyo bixin fiican gabdho hore la tartami karto heerkeedii taagan tahay waa barigan ka shaqaaleyn haye baan iskeelka ugu sareeyay oo markaa baxsan iyo maadii qaadanayeen baan qaato maadii soo warbixiyeen kun iyo sarwaadii soo mitlay ana markaasna iskeelkii sare la qaato tobka ku jira ayaa la qabtay inuu dhacdan soo dhoofno sidii baad ku gashay sidii deedinanka waxaan joognaa London nimcay hadii lagu yiraahdo waqtigaaga dib ha loo celiyo ama qonta ha lagu bedelo oo wax ku bedelo maxaad jeclaan lahayd inaad ku bedelato horta hadii lagu oran lahaa inta fanaanada noqon maxaad noqon lahayd horta fanaanada ma noqdeen inaan baran lahaa جامعة كسوق نجيب لها أما لو يرد نقول يرد أنا بجعلها أما محي هذي أقترب نقولها أبا محرس بانها حرس يقول بدل بدل عشان نقول حرسان لها يدوي لها بنقولها جودي حياة بدل ما نستعملها لكن كيف كدين يدرسون كم هذا اللي هو بدله محاب اللي بدله مقاوم لما بيفهم كذا ما كفي سعلاي وريا ولا هي كان هذا نفسها هي كفر يسوي الفنك مش هنقول في سنة وقت كيس بقى لما هذا مش كده لما هذا كافي وكافي حكي له هذا اللي هو بتشيسني يعني اللي هي المسألة سجين واحد واختيار ضدك واحد سويدين يعني معايا فين أنا فنك كم مشغول سنين هاي تعيشها هاي أي قبضتها مدينة عتيمك ملوكتها تعيشها هاي ما حد تعيشها marka horta anigu inta badan dadka socdo leeyahay maartay wareeg badan leeyahay laakiin se marka aan ingiriiska joogo oo aan wadankayga joogo horta team contact abba team coach waxay ahaydeen waxyaabaha anigu aan aad u xiiseeyay marka aan keliga yahay
بدأنا نقول جتوه ونسكسبيه وشقريبا يتنقيب يقول لي أنا ضعفنا أو حنيجة أبورا حقيقة بهذا المفاجأة لما توني بدأ هاي لو كل ما قال لو قول فلان تمويا فما في الحب مقرني يمكن شو نسافر بس هذا في السفر يسأل أنا في ناس كل وقت قيسان الرجل يدرسوك وشقة البيسي أنا شخصا أنا اسكول دجن إذا البيسي كوه يميتشتو مركا أنا اسكول دجن بقول إذا كلوا أنا استاني تشتو مركا ما دام أنا البيسي كوه هاي دم إكس أنا بيجي مخني ما يفهم مغنى ما أنت مش عايشة هاي حدي بس اللي تحوينا لقول هذا وطن كنا قوة كيتش على هاي ما تنقط حتى إن أفلام تأبى إن شاء الله شو بنتوه إن ليه تذكر إن هي سهل دقيقة لما بيسكون في هاي سمر دقيقة نسيبه هذا هي تحسيني وأسبن ويعني دقيقة سنين وبالبدوبة سنين خاصة طاولة كدوتن أبى إن شاء الله ليفربول بانها كان تاجرة يلا بنتو كتشوبي يلا أبى نفس الشيء وإن شاء الله هيك قيدة والله هدي محيانا لا يقدر لها هذا شعرها وها سميلان ما شاء الله تيجي يقرنا يلا هذه أنتوين كوكرة أنتوين كولا تبغى تكتشرايو حالته إن شاء الله هاي واحد شاء الله تمكرون وإن شاء الله هاي بدك إن شاء الله بس إن شاء الله تركيز ساح سوق ما بتصير إير ما كيس ماله إن شاء الله فاضل إن شاء الله هاي ما شاء الله بشر مرة إن شاء الله هذا البراء ويوم هو بتكيدا مركب واحد طبعا هيلك وحن كشعر يخلون كأي دجاجة هيلي ما أدرس مستعد متعلم وهجد دجاجة وهجد إن حظها ولا لقف لامي على بقيلية وحيكون هذه هذه وعن ثنائية دي التغيير هو يسكن إن هذا حظها ولا لقف لامي على بقيلية إن سنة أي كتير واحد كنت مهتم واحد سنة يهود إسكال إن حديثي marka qashadu waxay ku timi gabdhaha Soomaaliyeed laga sameeyay laakiin qof gaar u leeyahay jirto waxa gabdhaha Soomaaliyeed oo ku saysan qajeelan ku sidee jacaylka marka qaadaqaad qado waliga hadigini qardhaas weeye hafurin adiga qaban qahaye hablaha wala la qasla يا لبو قيليا يعني قبلها هذا شيء كم كرو كابوريت يا دعاب بيشين روكا هديجين هاي ولكن دليلي يا كاتنوتي إن هرجيسين كوكولاني إن بريها المدوين كان وجودن بيه عاد بضصنا عاد صنع نقطة من نقبة إن waxaa tahay fanaaniinta tirada yar ee magacooda uu caan baxay ma ahay magac kalena loo yaqaano burcad jaamac xirsi magacaas sidoo kuugu baxay sidoo kale waxaad nooga warantaa waxyaabaha hargeysa kugu soo celcelinaya iyo qisadaas horta maxay ahaydeen magacayga runta ah waa burcad jaamac xirsi beeriye taasi waa kow magacayga labaadna waa Maysan Caraale waa faamigi aan baxay wana faamigi soo korsoy waxa hadda aan soo noqday waxa weeyaan xoolaha problema waa dareerkii korsaday iga yimi marka wanigii uu iska joogay oo marka maxkamad baan furtay maxkamadiina marka adeegana waxa loo diray waaran oo la soo kaaya keenay waxaan dhigay aan rabnay in loo kala qaado marka ala kulli xaal مدة محكمة دي نقطة حد ما كذبت وقتي أي محكمة إيه قبضتي يعني فليس كسودي حتى أنا عشان محكمة دي كبلا بنتي وهذا أرنتها هتين إيه يرتب أقول قلنا سيدي كبلا متى إنه رجستياش حسوسينه سيدي كبلا متى مركب جوه الرئيسي وقت جاء أبنتي وقت ما هاي يو خير تكلك وهلاي يفهم لي قاعد أتكلم كذا maxay haydeen sagale horta anigu saddex sano jira ayaan lumay halkaan sahadlo korkooda deedna waxa la geeyay Djibouti taasiis ku koray
macaamada laga daray islaan idda markaa yahaydo aabahaygii hore walaashii aysan caraale batuun caraale la geeyay batuun caraale ay kursatay batuun caraalena inaan Djibouti inta lagu kuriyo markaas waaba leeyfiiyayba wiil dhashay bii kursi baray labeen kala kisay sana caraala شاندار ما أقام في يدور لا وسركالي مكيزين تدنا على كل حال شو سنة مركز أن أشرو أيامي ولا كي ولا ولا أنا كلا دليل ومركز هيك أنا كل من اللي سعدي أيام واحد بهلي أنا كياري جبتي استجي يريد يبري لي هذا عرفت سوي نور هنا وعانا مركز reerkii ay qabsadeen ma walba walay oo yimaada walay kaya waxa la soo siiya dalba la soo iibiya adigu ilaa iyo maxay haydeen ilaa iyo maxay hayd shan jirkeygii 6 iyo 7 iyo 8 way diris in laba sano bad reerkaasi abayn markaan anigu u lumay ilaa hadda lama hayo hooyadii Ethiopia ka shayga raadisay dawladda Faransiiska waxay leeyihiin hala keenay inta yar hooyadii yaabay ala kulli xasiisi loo wareejinayay hooyadeedii joogtay sheekh ay soo korsatay baa fariin loo diray hal gabadhii soo dad baan ugu haystay weytin hooyaday dii labaad way soo kaxaysay sheekh ay keentay sheekhuna aanadii ka galay sheekh waxa ka galay in iskuulkiisa ay soo sheekeeyay horta sheekadu waa sidaas idna 96kii 96 ee dilan dibay familyiga la soo hadleen oo la yiri gabadhaas waa gabadhayadii هكذا سنة شفتها ونكوبنا ولا هذا لا حيله وحن نوضح هايدين نور عبد عليهم marka iyagu qolada aad la noolayd ku sheegan in soo luntay oo ay ku soo helaan may in sheegay laakiin anigu de ma weyn baan xaban ogaa odagana markuu u dhimanayo ku dardaarmay sheekadan way bilaawday laakiin de dhashay ma qaanan markaa marka wayna reerkan soo kursiday waliba dadka fiican ay kursanayeen way aad fiican oo ahaayeen ina meel aad tagaba ma haysto xanin tagiya sidaad ku soo heshay family waxa ku soo helay in streetini lixdii soo wareyseen ay soo helay horta 9 iyo 3 bay horta albaniga daawadeen aroos halkan London ka dhigay tii aan ka lumay marka aniga i haysay ee xadiga iga furtay xadiga igu xidhay hadana iga furtay ولا شيء هاي ضربوا على الكلادالين تي بها أكيد دايق قرطي لأنه حيث درتي وعبد عليهم كان إنجليزك كله غير كيسنا نسكو برامي حيا لدي محن دون لأنك هقاذنه يعني تيدي باتاي على متاسة اللي هاي تاسن واد اللي هاي وهمتين باندي لكن باسبور ما هيستمر كان باسبور كيلو يعني دي من إياه لأنه هكذا حنين كان باسبور خداني خبر دايري كل إيو تيسنكي aniga jilid marnay markaas reerkayga bartay hooyaday helay korsaday haystay ilaa abtunaa waxay si mootanta wala sanay bad ha adeegana saasan ugu sheegay on ku hadda reer sheekho cadeynaysan inuu shan jira anoo 3 jira anoo 4 jira anoo 5 jira waxaan u gaaray 6 qofkii ugu dhaaranayo diyaar baan ilaa hadda baan taaganay awada bilaadisi ayaan taaganay marka adoo على كل حال شيء iska soo dhamaatay xaqeedii ku jirtaa aduunkan jijiinaysa ma jirto DNA ba jirta DNA adigana loo kala qaadaya lawyer ban qabsaday wuxuu idin sheekadeen way socotaa hadda waxaan u manaa inta marka hore saasaan u imi hadana waan baxay tankii lagu soo noqon waan imi maxkamadeena diyaar baan lawyerkayga inuu shaqeynaya marka maxkamadda imika DNA gibad sugaysaan waxa loo yaray سودانكي أديجا محكمة دمانتها من كل هلايو بالوياري تدنا وحلو دي بين ورانكي أديجا مركور كي نسوينا وحاجة إن شعيلكو هتوقف في هاي تري مرنا قدي سنشر لها كانوا تاسينا وحويا شعيل كمركان أركين وديفكي سبليها هاي مد على عرس مد ترين سودي جاية مد لها كان يقول midla saanaan ahay oo jacaylka dibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay in haysta qaad oo tiri haduu qof yahay bada waa tabaarkan laga wada calaacalayo qudhiisan jar laha yaa indhaha una iga qaada ban yaa waa markii anigana aan jacaylka soo bilbilaabayo martin wiilkii gooriyaan iskursino markaas heestaas maadka qusaysay may
bulshada un badka ها ما أنا waxaan jecelahay balama kulmi rag fiican bay ilaahay soo mariyay ما شاء الله muuliga masayra ma arag ما شاء الله نمعو فنك وقتigan hadii lagu yiraahdo tilmaan maxaad ku tilmaami lahayd marka aad banaanka u baxdo maxaad leedahay caanimadu dib iyo dheef way leedahay horta maxay haydin fanku horta waa entertainment oo adaa u baahan qofku haduu fanaa stress iyo fikir iyo xanaaq iyo farxad iyo qosol un baan ku jirnaa anigu haddaan isha qosol waayo waan soo iibsadaa meel lagu qosolayo waa inaan tagaa aha ana haye nimca degan soo jeeda ama ku imaadaa ha hada qosolkii farxadda samaysta markaan baxay reer oo faraxsanay waa marka laba cisho aan caajiso qosol waayo horta ma waa entertainment fanku وانا health weeyaan waa caafimaad midna wuxuu yahay caan baa tahay adduunka marka la hargeysa kuma mari karo daaqada dan muradeeda jisto maxaad dareentaa markaas farxad maxaad umadayda way jecel London ma jooga gaalku ima yaqaan maxaad ugu dhacay wajoonen nimarale yes bes maxay tahay anagta afrikaanka ee Soomaalida fanaaniinta waqtigan maxaad ku tilmaami lahayd maxaad se kula talin lahayd nimcay wallahi fanaaniinta waxaan oran lahaa horta isku bahbaynu nahay ama kuwa weynaha noqdo ama kuwa yaraha noqdaane inaan saaxiibno inaynu meel ka soo wada jeesano inaan istaageerno inaan soo dhaweysano inaan wixii shashaakiyo wixii maarta anagu dumarkii hore fanaaniintii hore waa bari de ilaahay horta malaa'ig min wala isdilaay iyagu isula soo calaysan badan ruwaadi wada dhigayeen oo la moodaynin inay wulgad qabteen ha marka waxaan oran lahaa de aynu wada sheekasano wada faraxno wada qoslo meel ka soo wada jeesano isu ducayno oo maxay soo raadsano oo shufka iska dhax saaro oo xumaanta iska daayo inagiiba dambi ku jirna dambi kale ha shaqaysanina ha isxamanina ha isxaasidina teeni kale inaga badan daanka taladeedu waa taa وهاجاج نمعياسين جبجبدي برنامج كن شوقنا هستد شعلان لهيد إن الدقيستياش ودورته وهذا قصة حدا horta heestan waxay ga dalbatay in degan aan aad u jecelahay in abtiday walaashay saaxiibaday ma saarabeen fanaaniinta saaxiibooda noqdaan oo isugu wanaagsanaadaan hadigan horta aad ma ku jecelahay hadii reerkaaga aadna waad salaamaya familygeygan salaamaya kan jooga intii ka tiri leeyihiin oo dhan ayaan la heeywan aad baan idin salaamaya familgan dhaxay oo luftim oo salaamaya umada Soomaaliyeed oo dhan waa salaamaya fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan waa salaamaya odayga Cabdirashiid Khaliif ibn Mataan oo baalan waa salaamaya waxaan leeyahay salaan sare saaxiib waxaan nagu soo xirayaa heestii in ay nimco dooratay nimco degan manaftaad jiidato meel kala arki weyde ma qalbigaad ma xato ka marmi waaye haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe iyo gambalaalka taabo si aanay ku dhaafin muuqaaladan soo gelino sidoo kale nagaga xidhno bugagan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan Facebookga Instagramka iyo Snapchatka